kula wacan wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliyeed Production kuna soo dhawaada barnaamijkeena qodobada caawa ku daawo doontaan hadduu rabiidna waxaa ka mid noqonaya beesha caalamka oo la wareegtay talada Soomaaliya iyo wasiiradii ugu badnaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo toddobaadkan dhowr jeer looga yeeray xirada xalane xilli wasiirada xukuumadda lagu qasbay in shirarka Muqdisho ee hay'adaha caalamiga ay u wareejiyaan magaalada Nairobi. Haddaba waxaan idin wadaagi doonaa warbixin gaar ah oo aan idinkaga diyaarinay sida wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay xirada xalane ay ugula wareegeen talada Soomaaliya iyo bahdilada ay la kulmeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya toddobaadyadii ay weedaartay. qodobadana kale waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan aanan caadi ahayn caawa la yeelanayo taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Oduwa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Xijaar. waxaan idin wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kulamadaasi laga helayo iyo waxyaabaha ay ku saabsan yihiin iyo waxa ka jiro in caawa isbedel lagu sameeyo talisyada militariga iyo booliiska Soomaaliya. faahfaahin ayaan idinkaga hayaa. qodobada kale waxaa ka mid noqonaya warar dheeraad ah oo ka soo baxaya geerida Cali Dheere xilli macluumaadyo la wariyay ay sheegayaan in dhaawiciisii naflacaariga ahaa uu ku ruuq baxay Bu'aale. barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. qodobada iyo kuwa kale oo xasaasi ah oo aan idin hayno ayaad ku daawo doontaan barnaamijkeena. hase haatee marka hore dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa daawadayaal muuqaalkan like dhadaan sidoo kale channel la wadaagtaan saaxiibadiina kala mahadsanidin. faahfaahinta ayaanu gudageli doonaa. haddii aan ku bilaabo beesha caalamka ayaa qarka u saaran inay la wareegto talada Soomaaliya iyadoo wasiiradii ugu badnaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha toddobaadyadiina weedaartay looga yeeray xirada xalane xilli wasiirada xukuumaddu lagu qasbay in shirarkii Muqdisho ee hay'adaha caalamiga ay u wareejiyaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. haddaba waxaan warbixinta ku bidhaamin doonaa isbedel gaar ah oo ku yimaaday habdhaqankii wakiilada beesha caalamka ee xilligii dowladii madaxweyne Farmaajo iyo tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee qaadeen kuwaasi oo ka fog diblomaasiyadda. kadib 15 May oo talada Soomaaliya uu ku guuleystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa dib u bilowday faragelinta tooska ah ee hay'adaha dowladda oo ay ku sameynayaan wakiilada caalamka ee fadhigoodu yahay xirada xalane. dhowrkii maalmood ee weedaartay shisheeyaha ku sugan xalane ayaa bilaabay in si toos ah iyo si dadbanba ay u maamushaan hay'adaha dowladda iyaga oo fadhiyadooda xalane ugu yeero madaxweynaha ra'iisul wasaaraha. qaar ka mid ah wasiirada xogahan oo ah kuwa lagu kalsoon yahay oo heshay warbaahinta Soomaaliyeed ayaa warinayo in wakiilada caalamku fadhigoodu yahay xalane ay xoojiyeen faragelintooda siyaasadda Soomaaliya. dhowr heshiis oo dhacay oo aanan la marsiinin baarlamaanka Soomaaliya ayay ku lug yeesheen shisheeyaha ku sugan xirada xalane dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay. fadhiyadii hay'adaha dowladda ayaa lagu qasbay xukuumadda in loo raro magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si macaashku ay u heshay dowladda Kenya iyagoo eegaya danaha xidhiidh ee wakiilada caalamku dalalkoodu kala dhaxeeya dowladda Kenya si dhaqaalaha ugu badan ee mashaariicda iyo xubnaha hay'adaha caalamiga ah martigelintooda Nairobi uu dhaqaalo badan oo kaga soo galo Kenya. si la mid ah toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa la wariyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay wakiilada caalamku fadhigoodu yahay xirada xalane ay ku qasbeen madaxweynaha jamhuuriyadda heshiisuhu ka mid yahay heshiiska xaraashka kheyraadka dalka oo ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya weli aysan ka heshinin isla markaasina madaxweynuhu uu dhagaha u ka fureystay kadib cadaadis kaga yimaaday wakiilada caalamka ee xalane fadhiya. qorshaha dib u howlgelinta maraakiibta shisheeye ee Soomaaliya ee la dagaalama burcadbadeedka ayaa sidoo kale qayb ka ah dhowr heshiis oo madaxweynuhu qalinka ku duugay isla markaasina cadaadiskoodu ay lahaayeen wakiilada caalamka oo ugu yeeray xirada xalane oo fadhigoodu yahay sida aad ka warqabtaan sanado ka hor waxay ahayd meel Soomaalida looga yeero balse waxa ay farahoodu ka baxday shisheeyaha xalane jooga markii uu talada la wareegay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo waqtigaasi wixii ka dambeeyay Soomaalidu ay ka nasatay naasnuujinta shisheeyaha balse bilo kooban oo ay talada Soomaaliya maamulayaan nidaamka dami jadiid uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayay u muuqataa in dib ay gacantooda ugu laabatay taladii laga wareejiyay shisheeyaha jooga xalane. sida ka muuqata dhowr sawir oo safiirada dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ay kula galeen qaar ka mid ah wasiirada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa ay muujinayaan in si isku mid ah lagula tacaamulayo iyadoo dhinaca diblomaasiyadduna ay si weyn ay kaga fogtahay. mudnaantii wasiirka arrimaha dibadda ayaa meesha ka baxday iyadoo xubnihii uu la tacaamuli lahaana ay la tacaamulayaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha taasi oo loo arko inay si weyn ay kaga fogtahay diblomaasiyadda. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre ayaa loo arkaa in bahdil weyn ay ku tahay tallaabooyinka ay qaadayaan wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu uu yahay xirada xalane.
sawirkii ugu horeeyay booqasho ay Kate Foster safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ay ku tagtay fila Soomaaliya ee laga soo qabtay isla markaasina lala wadaagay dadweynaha ayaa hadalhayn weyn abuuray kadib markii ay madaxweynuhu lugteeda ay aadisay isla markaasina dadka diblomaasiyadda wax ka yaqaan ay ku sheegeen inay tahay mid hoos loogu dhigayo sawirro gaargaar ah oo ay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradu ay u dooranayeen xilada xalane taas oo bahdil ku ah qarannimada Soomaaliya si kastaba ha noqotay haddii aan dib u milicsano wixii ka dambeeyay 2017 indhaha shucubta Soomaaliyeed ayay si weyn u soo jiidatay kulankan oo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya isla markaasina madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu filada isugu yeeray dhammaan wakiilada caalamka ee xalano ku jira taasi oo kor u qaaday qabka Soomaaliya balse hadda oo la maraya 2022 ayaa su'aasha aan jawaabta loo helin waxay tahay Soomaaliya ma waxay u noqotay wixii ka horeeyay 2017 mise madaxdeenu ayaa mahsan geesta kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa caawa kulan aan caadi ahayn kula yeelanaya fila Soomaaliya taliyaha militariga Soomaaliya General Duway Yusuf Raage taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar kulankaasi oo xogo dheeraad laga helayo wararka laga helay kulankaas ayaa sheegaya in madaxweynaha taliyaasha ciidamadu uu kala hadlayo warshe ay u soo bandhigeen ku aadan iscasilaadooda General Duway Yusuf Raage ayaa sidaad ku dhageysateen barnaamijyadeena hore waxaa jiray in warqadiisa istiqaalada uu gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale ku horeeyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar kulankan ayaa guux xoogan caawa ka abuuray magaalada Muqdisho iyadoo ay suuragal tahay madaxweynuhu xilku ka qaado General Duway Yusuf Raage iyo General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar labaduba waxay ka mid ahaayeen saaxiibada dhowdhow ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama huba sababta rasmiga ah ay ku cadaadinayso iscasilaadooda hase yeeshee warar kala duwan ayaa soo baxayo iyagoo wararka toddobaadyadii ugu dambeeyay la wariyana ay ku waramayeen in taliyaashan ay isu casilayaan ismaandhaaf soo kala dhex galay iyaga iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya inkastoo warar kale ay sheegayaan inay doonayaan inay qayb ay ka noqdaan shirweynaha nabad iyo nolol ee laga furayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga taasi oo ay u suura gelinayeen iyaga oo xil ka hayo talisyada booliiska iyo militarigu inay ka qayb galaan shirweynahaasi shirweynahaas waxaa ku sugan xubno saameyn weyn leh oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la taliyay hore amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kale iyadoo abaabul iyo duufaan xooggan damul jadiid ay kaga soo wajahan tahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dhinaca kale warar dheeraad ayaa ka soo baxayo geerida Cali Dheere xilli macluumaadadu ay sheegayaan in dhaawaciisa naflacaariga ahaa uu ku ruuq baxay Bu'aale wararka ka imaanaya degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku soo waramayo in dhaawaca naflacaariga ah ee Cali Maxamuud Raage Cali Dheere afayeenkii kooxda Al-Shabaab oo waayidii ugu dambeeyay halkaasi lagu hayay laga qaaday meedkiisa isla markaasina la geeyay Bu'aale oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe dadka deegaanka ayaa saacadii la soo dhaafay soo tabiyay in afayeenkii kooxda Al-Shabaab oo dhaawac culus uu soo gaaray isla markaasina lagu hayay Aadan Yabaal isaga oo meedah laga qaaday Aadan Yabaal isla markaasina loo qaaday Bu'aale oo gobolka Jubbada Dhexe ka tirsan ila wareedadan la hadalnay ayaa noo xaqiijiyay in xubnaha shabaabka ay waayidii ugu dambeeyay ka soo cararay Ceelbuur iyo weliba deegaano kale oo dhaca gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ay si weyn ugu soo qulqulayay Aadan Yabaal oo halkaasi saldhig ka dhigtay ay raadinayeen afayeenkoodii Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo ku soo dhaawacmay dagaalada ka dhacay deegaanadaasi dhaawaciisu naflacaari ahaa muddo maalmaha oo Aadan Yabaal uu ku sugnaa laga qaaday isaga oo meedah isla markaasina Bu'aale lagu aasayo isla markaasina meedkiisa ee kala carawday Aadan Yabaal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya iyadoo halkaasi ay duulaan ku yihiin ciidamada militariga Soomaaliya iyo weliba beesha mudulood ee deegaanadaasi degta ayaa sidoo kale sababtay in shabaabkii ugu badnaa halkaas isaga baxaan gudaha daawadayaasha ayaa ku soo admiraya barnaamijyada kala socotay warbaahinta Soomaaliyeed Production tan ay kulatay nabadii warsan